الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن محمد ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى هيدي بركيو قصة هديك سوق قادو ولا لها كلا جارسي وحلقة يابا إني أنفع ذي قصة ما أنت أنا ديم وضو وحيكون عضي ويلا أنه صاحب النهاي إلهي سبحانه وتعالى هبركي وحيري مال مها كم إذا أنا قوبت يدي الشقادة شوقة أيا وحلقة قبتي wadnaha ay xanuunay buu yiri goobtaydii shaqada ayaan ku suuxay oo aan ku miir doortoomay ambalaastii baa loo wacay waxa soo baraarugay buu yiri iyadoo aan dhakhtarka joogo oo ay igu xiran yihiin qalabkii dhakhaatiirtii waxa ii sheegeen buu yiri in muddo 5 maalmood gudahooda qaliin la igu sameeyay wadnaha ah labadii maalmood ee ugu dambeysay ee qaliinkiisa ka harsanayd ayaa arrinkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay waafajiyay buu yiri arrinkaas oo sabab u noqday in qaliinkiisi waxba kama jiraan uu ka dhigo oo wax laga qalab la waayo arrinkaasi muxuu yahay bay kula tahay Allahu akbar arrinkaasi arrin kala ma aha wa salliga nabiga calayhi salatu wassalaam wuxuu yiri labadii maalmood ee ugu dambeysay wax kala ma qabanin illa waxaan badsanayay buu yiri oo carabkayga mar walba aan ku celcelinayay صلي نبينا عليه الصلاة والسلام وحو يلي هبين كم إذا هبين نذي لوذي مع الموضة هيد أيان صيحضي هردد إذا أيان رياكو رياضي رياضة صو إيقا فرحسي وحو يلي أنيقو هرده أيان قف إيمد مركاسو كوب بياء يعب سيبيل كوب بياء بو انتو إيدي بابو يلي هو كوب كان عب بيه أيان عبابو يلي markaan biyihii cabay ayaa qofkii wuxuu igu yiri maanta ayaa kuugu dambaysa xanuun Allahu akbar maanta ayaa xanuun kuugu dambaysa subaxii baan dhakhaatiirtii la kulmay buu yiri shaybaadadii baa la imariyay waa la wada jikimay wuxuu yiri meesha wax laga qalo oo aanu ka qalno oo qaliin lagu sheega ama qaliin gali karaay meesha kuma hayno cibra ayay u noqotay yaani dhakhaatiirtii u noqotay aniga iyo adigana inoo noqon kartaa salliga nabiga calayhi salatu wassalaam ayaa qaliin ka badbaadiya walaalkeen aynu badina salliga xabiibkeena sallallahu alayhi wa sallam khayr allah idisi walaalayaal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh